السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ونكسر أصحاب دقاليقة من الباجوكتان waxaad ku soo dhawaataan muuqaalkeeni xiga muuqaalkeeni maanta waxaan diiradda ku saaraynaa halaydikii Farkas Fan oo ah shirkad inta badan dadyooga caalamka ay ku tiriid jireen waxaana maalmihii u dambeeyay soo wajahay caqabado aad u fara badan kuwaasoo kaga imaanaya wadamada sida Canada iyo America iyagoo ku soo oogay dacwad Farkas Fan soo laabashadeedu aad ayay u yar tahay sababtoo ah cadeemaha laga keenay ayaa ah cadeemo aad inta badan isleedahay waa ay adag tahay in ay dib u soo laabato sida darteed biri waxay ku aasaysan tahay xilliga dacwada ay qabsatay shirkadani waana 11 September 2023 xaqiiqatan waxyaalaha warqadda cadeynta ay soo saareen qolooyinka ku haysta dacwada waxa ku cad in inta badan shirkadani ay ahayd mid scam ah ay macaamiishoodu ay aad ugu xumeed marka ay sameynayaan lacago profit ah in case hadday soo laabata durbaba inay howl gasho aad ay u adkaanaysaa laga yaabay inay qaadato muddo bilo ah laga yaabay inay qaadato muddo maalmo ah haddaba waxyaalaha inta badan aan ka sugi doono waxay tahay laba midkood in shirkadani ay gabi ahaanba halkan ka faaruqdo macaamiishii ay lacagihii u taalay kuwii fundingka ah oo live-ka lacagta u taalay lacagahoodii ay dib ugu soo laabtaan sidoo kale dadyoogii challenge-yada haystay oo weli aysan akoonkoodii ka taqalusin in iyagoona lacagahoodii dib loogu soo celiyo midda labaad ee laga filan karo Farkas Fan waxay tahay berito in lacagihii aysan dib u soo celinin ha ahaadan kuwa live-ka ama kuwa challenge-ga iyagoo qabsanaya qareena fara badan si ay u guuleystaan wadamadani ku soo oga dacwada dadyooga inta badan waxay isla hadal hayaan Farkas Fan 95% soo laabashadeedu ay aad u liidato haddaba waxaan sugnaa waxay tahay 11 September wixii ka soo baxo nuqul ah aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.